Rooble ku cadaadinayo qorshayaal waaweyn iyo inuu xilka ka qaado wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse inuu dalka ka ceeriyo safiirka dowladda Itoobiya iyo kan dowladda Qatar. haddaba muxuu yahay qorshaha mucaaradku ay markaasi ku doonayaan in lala dagaalamo guud ahaan saaxiibada madaxweyne Farmaajo si tashiish loogu furo taageerada ay markaasi siinayaan Soomaaliya? xog sheegaysa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu qorsheynayo inuu isku day noocaas oo wado wallow arrintaas cabsi badan ay ka taagan tahay. warkan ayaan ku soo gudbin doonaa. haddaba maxaa dhici kara haddii dalka laga ceeriyo safiirada Qatar iyo Itoobiya? maxaase dhici kara haddii wasiirka arrimaha dibadda xilka laga qaado? faraqeyn iyo faahfaahin iyo xogo kala duwan oo soo gaaray ayaan dul mari doonaa. wararkeena kale waxaa ka mid noqonaya ciidanka ADMIS la yiraahdo oo 10 lama filaana markaas u dhigay Maxamed Xuseen Rooble iyadoo la soo warinayo in siyaasiga aan iraade danjiraha Faransiisku Mandela la yiraahdo oo Muqdisho yimid gadoodka ciidanka ADMIS oo sabab u noqday inuu markaas Rooble u hanjabo wasiiradiisa isagoo u sheegay in beesha caalamku ay markaasi dib u fureen xarunta la yiraahdo MOFCON oo ah xaruntii loogu talagalay inay ka soo degaan diblomaasiyiintu. warkan ayaan ku soo gudbin doonaa kulankii beesha caalamkii Maxamed Xuseen Rooble iyo xogo kale markaasi kadibna soo gaaray ayaan eegi doonaa. sidoo kale waxaan eegi doonaa Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya oo mucaaradka kale ee ka dhinac noqday wallow ay jiraan warar sheegaya inuu markaasi kulamada ka qayb galo. haddana mucaaradka kale ayaa shaki weyn ka muujinaya Xasan Cali Khayre isku mulankiisa isaga iyo Fahad Yaasiin. Khayre maalmihii dambe u ololeynayay in Fahad shahaadada xildhibaannimo la siiyo iyo sababta ugu ololeynayay. warkan ayaan ku soo gudbin doonaa. iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Muuse Geelle oo ku dhawaaqay go'aan ah in 14 bishan aysan kadib dhici doonin dhaarinta xildhibaanada. haddaba siday ku suura galaysaa iyadoo ay maqan yihiin Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed in markaasi xildhibaanada si la dhaariyo? warkan ayaan ku eegi doonaa. iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya soo galeen ciidankii ugu badnaa xilli saacadaha nagu soo aadan ay bilaabanayso munaasabadda 12 Abriil ayaan dul istaagi doonaa. sidoo kale saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan halkani waa Suldaanka TV. muuqaaladan sheer garay oo saaxiibada gaarsiiya si ay kula daawadaan like iyo commentiga hanaga iloobin qaybta hoose noogu soo qor fikirkaada adigoo ka aragti dhiibanaya wararka warbixinada iyo sidoo kale macluumaadka kale soo gelinay YouTube-keena. waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. u diyaar garooba iminkana qodobadii aan dul maray oo faahfaahsan. haddaba qorshe la yaab leh ayaa ka socda gudaha magaalada Muqdisho. mucaaradka ayaana qorshahan ku cadaadinaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. waana qorshe haddii ay suura galaan dalku uu burbur toos aadi doono. haddii uu ku dhaqaaqo Rooblena ay noqon doonto in markaasi mahadhooyin aan Soomaaliya aysan ka soo kaban markaasi lugaha loo geliyo. sida xogtu sheegayso mucaaradku waxay ku howleeyihiin maalmihii la soo dhaafay saaxiibada u dhow madaxweyne Farmaajo in la beegsado si toos loo beegsado sidii loo beegsaday Ambassador Faransiisku Mandela oo kale. Mandela ayaa ahaa saaxiibka ugu dhow ee dhinaca amisom madaxweyne Farmaajo maadaama uu ahaa taliyaha guud ee ciidanka ADMIS ee ku sugan gudaha Soomaaliya. qorshayaashan lagu beegsanayo saaxiibada madaxweyne Farmaajo ma ahan mid hadda bilowday balse waa mid soo bilowda tan iyo markii ay iskhilaafeen madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale Rooble oo uu Rooble isku dayay inuu xilka ka qaado Fahad Yaasiin xilligii uu ahaa taliyaha nabad sugidda Soomaaliya. xilligaas wixii ka dambeeyay beegsi weyn ayaa ku socday saaxiibadii u dhawaa madaxweyne Farmaajo. gudaha markay ka soo dhamaatana dibadda ayaa la aaday sida xogtu sheegayso oo waxa la beegsanayaa dalalka taageeraya safiirada ka jooga Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada u dhow madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. mucaaradka ayaa Rooble ku cadaadinaya inuu xilka ka qaado wasiir arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse sida warku sheegayaan soo gaaray. Cabdi Saciid Muuse ayay wararku sheegayaan inuu markaasi yahay ninka sida weyn ugu dhow arrimaha dibaddana gacanta ku haya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. arrintaas ayaa ka dhalatay hadal hayn badan kadib markii Cabdi Saciid Muuse la soo warinayo inuu kaalin ku lahaa go'aankii Muuse Faki uu uga soo horjeestay ceerintii Faransiisku Mandela. taas ayaana ka dhigan in warqadii madaxweyne Farmaajo uu diray ay ahayd mid la marsiiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. xogtu siday sheegayso mucaaradku waxay ku qalqaalinayaan inuu xilka ka qaado Cabdi Saciid Muuse maadaama uu yahay saaxiibka arrimaha dibadda gacanta ku haya ee madaxweynaha u qaabilsan ololaha dibadda sida la soo warinayo. arrintaas ayay mucaaradku u arkaan dhabarjab weyn oo madaxweynaha gaari doona haddii uu Rooble ku dhaqaaqo. balse arrintaas haddii uu ku dhaqaaqo waxaa ka dhici doona mahadhooyin iyo gabadfallo kale siday wararku sheegayaan. dhinaca kale waxay beegsanayaan sida xogtu sheegayso safiirka dowladda Itoobiya u jooga Soomaaliya. taas ayaana ka dhigan mid iyagana loo beegsanayo
in Ethiopia Abiy Ahmed Cali uu si weyn u taageerayo madaxweynaha Soomaaliya waxay sidoo kale u aaneynayaan inuu kaalin ku lahaa go'aankii ka soo baxay Muuse Faki Maxamed gudoomiyaha midowga Afrika taas ayaana ka dhigan mid ay u arkaan in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu garab ku siiyay in laga soo horjeesto ceerintii Francisco Mandera waxay doonayaan in si toos ah Roble uu ugu dhawaaqo in xiriirka loo jaray dawladda Ethiopia ku xumeysta madaxweyne Farmaajo darteed taas ayaana ka dhigan tallaabo kale laga yaabo inay dalka Qatar geli karto arrinta ka sii daran ayaa ah in sidoo kale ay beegsadanayaan safiirka dawladda Qatar ee Soomaaliya maadaama Qatar ay tahay maalgeliyaha madaxweyne Farmaajo iyo inuu ku soo laabto doorashada dalka xogta ayaa sheegaysa in tashuushka ugu weyn lagu furayo dawladnimada Soomaaliya iyo dalka Roblena waxa laga yaabaa arrintaas inuu ku dhaqaaqo wallow ballanqaadyo kale oo ku helay haddii uu ku dhaqaaqo in loo fuli doono dalal kale oo dibadda ayaa faragelinta qayb ka ah waxayna doonayaan in la iska hor keeno dalalka Qatar iyo Soomaaliya Ethiopia iyo Soomaaliya iyo dalalka kale saaxiibka la madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii Qatar iyo sidoo kale Ethiopia ay beegsadaan mucaaradkii Roble waxay ka dhigan tahay duulaan qaawan oo lagu qaaday dawladnimada Soomaaliya iyo inaan rajo laga lahayn in Soomaaliya markaas ay madaxa kor soo qaado Roble ayaa arrintan ka cagajiidaya cadaadis weyn ayuuna kala kulmaya dibadda iyo gudaha dalal kale oo Imaaraadka iyo Kenya qayb ka yihiin ayaana kaalin ku leh iyagoo doonaya inay kaalintooda xajeestaan Qatar iyo Soomaaliya xiriirka leeyahay tashuush lagu furo siday ku doodayaan dadka qaar waxay arrinta ku soo kordha haddii Roble ku dhaqaaqay haddii kaleba wararka ku xiga ayaad uga bogan doontaan haddii alla qadaro dhinaca kale ciidanka ADMIS ayaa 10 lama ilaabaan u dhigay Maxamed Xuseen Roble iyadoo la soo warinayay in Ambassador Mandera uu ku sugan yahay gudaha magaalada Muqdisho taasoo aan loogeyn xilliga uu soo galay meesha uu ka soo galay iyo sidoo kale sababta uu ku yimidba wararku siday sheegayaan Roble ayaa hanjabaado waaweyn u diray wasiiradiisa isagoo u sheegay in beesha caalamku ay dib u furaan xarunta liirada Mofcon sida xogtu sheegayso wasiirka amniga ayaa dhiiqo cusub lugaha u geliyay kadib markii xarunta UN ka soo dagaan oo albaabada isugu laabay taas ayaana ka dhigan gadoodka ay sameeyeen ciidanka AMISOM ee ku sugan xarunta Xalane dhinaca kale Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya ayaa mucaaradka kale dhinac markaasi ka noqday sida la soo warinayo walaa ay jiraan kulamada inuu markaasi si maldahan uga qayb galo haddana maalmihii la soo dhaaf wuxuu u ololeynayay in kursiga Fahad Yaasiin